السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا وحاول إنه مرجع بروجكتين expense سترايكر كها قيبتين intermediate at projects أوكي مرجع حاسوس من قيد بجنرا قيب مرجع intermediate مرينا قيب advanced إن شاء الله أسوس من طنا بروجكتين advanced أسليدي بروجكتين وهبوا واي وأنا سوقر كرتا إن شاء الله قيبها هو هبوران تفسوق عن دورنا سيدي عن بجنرا intermediate تبع أو سوحولنا إن شاء الله أوكي مرجع expense سترايكر كا already مرجع حمرنا ديتي already description كبرتا خرنا أو ترى آخر واحد laakiin cilada jirtaa waxay tahay refresh marka aan already u baxaya okay ciladana inta ka soo bixayso cilad weyn maahan waa soo xalinay bilis isku day inaa xalisid hadaa xaliwis qayb kamid uu soo qorbo toos hore uu soo sharxay isku day cilada inaa xalisid already marka aanina waa xalin doona okay has ka soo baxday dib malaha laakiin aad isku day inaa soo xalisid because already waa soo arnay soo waxay tahay qaabka loo xaliyo marka isku day maybe exercise inuu ku noqdo okay هذا مرجع حرمنا local storage كل كذا مرجع ديتو حكي ما نسا أب كاين كي ما نسا تصنعوا مرجع زيرو هانا لوس آخرنا مرجع refresh لدوب بحيث زيرو شو بتلا ايرو شو بتلا مرجع وحنا ايرو يوسون شو بتلينه عن ترى مرجع وح أو مرجع سي local storage ليسو آخرنا وكلا أوكي أنا لو كذا نا already مرجع كوات با أوكي مرجع أنكو بلاون local storage كذا نا مرجع قابت local storage لو كذا طبعا كعلنا هراء وصو شرحي مرجع قابت أنا سميننا أوكي استعمالنا سيدور يوسفتي كدبنا يوسفتي مركز استعمال local storage set item علينا مرجع وحاول بحي expenses أوكي ماشي أنا و JSON.stringify كدبنا expenses وحندي بالناس هو ده expenses مركز غيبت بيجينا كوسو شرحي إلا لو مرة كله مركز ستحد مكوعلنا أوكي إن قيبتا مركز already ماشي أنا أي مركز سي عن تو حجرنا ماشي مركز already فتشن عادي إنجلنا أسيكول بعدا فتشن مركز حكوا قرينا local storage on سو آخر سنة إذا كوسو آخر سنة مرجع مركز أو بحنا أوكي مرجع أو بحنا وعاويان و expenses وحنا مرجع وحيو كيسا storage expenses variable لو يخانو مرجع دو حدي دونا وحيسو عليسا مرجع هدو storage expenses أوجرا أو وح مرجع سي local storage لو كذي local storage لو كذي مرجع يسو علي عسير مرجع سعدنا JSON dot parcel هيدا dot parcel لها كده ماشي وحل جلنا يا storage expenses أوكي حلا وسوق قادني كعلي شوي مركا هدي مركز سنجرنا وحسوا علينا امتى سو علينا مركا امتان already وسو فانتين وانا سوق قادني اوكي مركا لو تلسترج انتي هرواي سيد هرويان وحبة اسكما بدلين مركا لو تلسترج حاليا undefined something انو كدوه مركا واسو دليسا بالكليا لو تلسترج اد كل كسي دليت كدوف اوكي سو مركا ريفريش تادا عادي وشقنا مركا تا في رسالة تانو ادوح قرنو نحلو كين دونا لو تلسترج ريفريش تادا هتا وجدا waxay baxayaan okay marka hada waxaan rabnaa markii in delete aan sameeyno iyo wixii markaas uu dambeyn aan sameeyno already delete kaas bis aynu dhimba so marka waxaan sameeynaa hadda waxaan u dhimanay kaliya qaybta delete aynu dhimana okay marka delete bis aan sameeyno marka delete function jalkan ku qoreynaa so already marka qaabkan uu shaqeyn doonaa qaabta hore oo uu shaqeyn doonaa uu qaabta hore oo id filter ka isticmaalayna bis uu shaqeyn doonaa waa the same thing waaye waxaa u bixinaynaa marka delete expense waxaa markaasi soo qaadanaynaa id-ga oo usoo baasaynaa separamis then marka ids marka si marka loo deleedo kuwii hore oo updated loo dhido expensia marka updated expenses loo helo waxaa markaasi sameynaynaa filterkaa sameynaynaa marka already marka filterka ku celcelinayay marka isku daya wixii mar aa baratid inaa xoog ku celi u baran jirtid marka waa kana سو علينا وحي للدليل ما أنا أنت كلا سو علينا وحنكو أبديت كرينا set expenses أوكي ما أنت جينا مركا وحن جينا list down جينا مركا فتشن جيسيس وباس بروبس هان مركا وقاتو مركا أنت مركا قابل بروبس هاوسي وأنا قيبتا expense list أوكي مركا بطن كا وحسي هذا كانوا سي هذا يا مركا وحن جينا أنت كدبنا أنت سي جينا marka sidaan noqon doonaa okay then marka fashion jaltana la isticmaalaya so waa maxay marka qaabkan wax kale ma ahan aawe min loo keenay mara ku cilna fiiriya waan delete discard daha marka qaab delete ku dhaco ila fiiriya waxaana delete ku dhacoya kan kale waa isla faana hada local storage bisa sameeyo waxba ma sameeyo local storage waa soo qaadateene wax maana sameyn ilaa hadda delete kan qaabka u dhaco bisa fiirin xataa delete ka taa soo sameynay so hadda qaabka u dhaco bisa nal karaba
so abkaana wax noo yaala soo ah expenseska datadiisa halkaas noo taalay local storage oo kan noo jeedinaya wax ay bedeli karnay oo nooga qornaa expenses halkan noo yaalay isla functionkiisii oo bedeli lahaa oo loo yaqaanay set expenseskana meeshaas noo yaal soo ah warkaas wuu cad yahay maadaama set expenses inta noo yaalo meesha wax laga bedeli rabo oo buttonka delete ku yaalna waa meeshan marka intaanu dhan waa marka kee loo dhiibaa marka kan wuxuu ka hoos jiraa kan ayuu ka hoos jiraa marka kan ayaa maadaama functionka intuu yaalo waxaa loo soo dhiibay kanaa loo soo dhiibi karaa because kanoo markaasi meesha yaala kanaa asabaros uu soo dhiibnay kadib kanaa uu sii dhiibnay laba mar bis samayn sidaasa sameyna marka waa kana abka waa kana kan asabaros u dhiibnay expense listii marka aadna kadibna expense itemka markaasi asabaros marka uu helnay soo gelinay waxaa usii dhiibnay expense itemka ayaa usii dhiibnay mujida so qaabkaas hal mar start adhaho oo ku yara celina draw inta loo baahanaya inta noo yaalay functionkii inta yaalay kadib waxaa loo soo dhiibay tan ayaa loo soo dhiibay because tan ayuu la sameeyay oo inta ku import garaysan kana gudaha tan ayuu kusii dhex jiraa tan ayaa markaasi uu sii dhiibay proxy to proxy ayay noqotay marka okay intaas kaliya waa marka already marka delete aan dheeraan delete na soo fududahay kan id bisa audio id waxa loo helaa expense.id waa in soo fududa on click baa isticmaalaysaa marka already wax badan aan fahanteen arjina because mar haddii intermediate projects aad soo gaartay projectyadaas inaad fahanay kaa rabaan balse waxyaalo badan aad fahansanta hadda on clicktaan oo kale waa sameyna haddaa ku dhow iyo waa sameynay haddaa ku dhow waa isku mid sooma okay so toolbagi wixii dhan waan fahansan tahay functionkana meesha lagu qoraa proxy oo qaadanaa waxaas dhan waan fahansan tahay sooma because hore usoo yara qaadatay marka functionka meesha lagu qoraa id oo dhiin id wax kale ma noqonay expense walba .id wataa marka object walba wuxuu wataa .id hore usoo aragtay ilaa 5 mar 6 mar 7 mar soo aragtay dabcan okay marka refresh anaano then marka waxaan dhahayna delete ku dhufanad wuu delete ma already xitaa wuxuu ka delete ma local storage because update loo sameeyna waxaan loo update gareynaa qaybtan yani because kan waa wax la soo qaaday ilaa inta la keenay okay already update taas ku dhaca local storage update ku dhaca okay fahantintaas waxaan rajeynayaa si fiican fahanteen marka projectkan intaas ku soo dhaweynaynaa waxaan rajeynayaa si fiican fahanteen projectkan marka inta wuxuu qori doonaa qofku wuxuu sameynayo wuxuu qorayaa tusaale kale 18 maadaama id tahay 18 aad ku qoray waxaa waaye 18 oo kale dadka ehelka xitaa waa 18 kartaa inta badan so saasaana marka ku qayr badan oo ajirna waa ku helaysaa already wax walba so $40 qof hasiiso kale 18 waay 18 labaad dhigi kartaa okay qofka la hasiiso like $15 xitaa okay weeyaan markii xamar la jeedo is okay marka intaas waa so marka intaas waaye so expense waxyaalay ka baxay marka qaabkaas oo qoraysaa marka intaas marka budgetin u tala galnay waxaan oo haray qaybta balance I'm sorry hadda arkay right now arkay anoo saan dhahayo ayaa arkay waan idin jira aljilna ina ilaawa la yaab lahaa oo si toos xitaa u ilaawo marka expense aan fiirino asina marka sidii loo shaqeynaa oo data marka la qaadayo oo waa expenses waaye expenseska alro in la soo dardaro datooyinka 2 2 3 kuwan dhan al roo la soo dardaro qaybta gaar ahaan qaybta amount al roo la soo dardaro marka see la soo dardaro iska fududahay zaaid inuu fududahay marka isla fiirino waxaa imaanayna halkan waxaa imaanayna qaybta expenseska waxaa u baasayna marka expenseska u baasayna waxaa siinayna expenseska as a proxy u qaadanaya waxaan dhahayna expenses waaya okay so balance email marka distraction ku sameeyo waxaan dhahayna marka expenses then marka meeshaan total ku helayna waxaan dhahayna constant reduce isticmaaleyna method loo yaqaano marka total saasan ku helayna waxaan dhahayna total balance marka reducer ka waxaan siinaya totalka wixii dhan oo isku soo dardaraya marka waxaan dhahayna expenses.reduce isticmaaleyna methodkan marka kan wuxuu aqbalayaa arguments oo marka toolbar function aan ku dhex isticmaaleyna marka arrays wuxuu markaa sameynayaa hal value ku soo celinaa total ahaana marka waxaan gelinaynaa function aan gelinaynaa waxaan dhahaynaa is equal so hadda bracket umbani sis bracket laana iska dhigaya waxaan dhihi doonaa marka total iyo expense okay so expense ka dhana markaa isu darayna waxaan leenahay total
total plus oo lagu daray expenseska qaybta amount marka expenseska qaybta lacagta waa qaybta amount okay waxaan dhahnaa expense dot amount marka waxaan dhahnaa comma 0 wax talamaan initial data waaye wax marka initial noqonayo so the second argument of reduce waaye kadibna waxa weeyaan waa qaybta initial value for total ahaan marka totalka wuxuu ku bilaabanayaa 0 so wuxuu ku xirantaa marka inta marka aad samaysay ku xirantaa okay so total kaas waxaa lagu daraa marka amount marka kaas marka waa total per function or reducer method okay marka each marka expense ka uu ku daraya amount oo marka la joodo ayuu dari doonaa totalka marka as 0 ku bilaabanayaa so already marka waxa lagu dari doonaa wax waliba aad markaasi aad ku soo dartid oo noqon doona expense amount okay meesha expense leh fahantaada waxaan rajeynayaa inaad fahanteen haddii aadan fahmin dee marka la fahmi karaysa dhib ma lahan balse wax kale maahan totalkan 0 initial ahaan 0 aan jarine wax walba marka expenses oo expense waaya meeshaan qaltooya expense oo haddii tusaale $40 dhahday haddana 40 waxa lagu sii dari doonaa totalka mar walba markii lagu sii darna waxaa markaan ku jeedinaynaa variablekan halkan kasoo muujinayna marka waa kana marka variable totalka already oo soo muuqan doonaa haddaysan cilo jirin export waxyaalo qaar oo weydiinaa so tan intaba ciladahani waxa waxyaalo qaab kala duwan oo bixi kartaa balse hadda markaasi aan damiyo marka aan soo kiciyo aan npm rendef uu ka yara bixi doonaa okay adina marka hadda ciladaas kuma haysataba maybe dhankeeda bis weeyaan so you have to know that ujeedaa uu ka baxay marka waa kana balance marka uu soo baxayo soo ujeedaa 40 ilaa iyo waxa la soo daray 15 balance yani total adii qoralaan balse balance inuu ku day jirtaa muhiim ah qoraalka hadda balance lahaa I think balance noqonaa qofkii si fiican fahansan waa okay laakiin total adii jirtaa balance adii jirtaa ani hansa u fahansana okay marka intaas waa baran karaa mteeni qaabkaas uu shaqeynaa waxaa filayaa yani confusion inaad ku qaadin balse aad si tartiib ah u soo fahantay marka isku day inaad tartiib u daawatid haddii wax aad soo fahmin ay jiraan waxaa samaynaysaa inta badan tartiib u daawo fahan midkaa fahantid le jidub fahan waa wixii maahane xifdis maahan okay so projectyada horena waxaan rajaynaynaa soo ahaatay marka insha allah waxaan u balanaa labada project kale oo recipe finderka iyo sidoo kale movie appki ayaa noo dhiban asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu